Soomaaliya barwaaqo ah, nabad ah, dhaqaale ahaan sarreysa, dadkeedu ay nolol fiican ku nool yihiin waayo waxa aan raadinayno oon daba soconna. Sidaan horeba u yiri maalmihii wacnaa way soo socdaan. Waxaan leeyahay hambalyo. Waxaan ugu hambalyeynayaa dadaalka iyo guusha dadka Soomaaliyeed ay soo dadaaleen iyo guusha maanta ay gaareen oo ah in dalka laga cafiyey deyntii muddada dheer soo daba taagneed. Adduunyadu qaabaalay leedahay, qaab dhaqaalay leedahay, qaab amniyay leedahay, qaab maxaan ku irahdaa dowladnimo iyo qaab dimuqraad waxbay leedahay. qaabkii dhaqaale adduunka ugu tala gashay oo aan muddo dheer ka maqnayn shuruudo uga maqnayn ay ahayd in deynkaasna lagu leeyahay ama iska dhiibno ama processna looga cafinayo wadana looga cafinayo aan soo marno. Dadka Soomaaliyeed iyo dowladahooda iyo hogaamiyaashooda waxay ku guuleysteen inay soo maraan wadadii in ka badan 10 sano ayaa hawshan ay soo socotay. Waxay soo martay dalka maamulo kala duwan oo ka talinayay, madax kala duwan oo ka talinaysay, xukuumado kala duwan oo dalka ka talinayay ayaa midba maalintiisa oo wax ku soo darayay maanta ayay soo dhamaatay oo nalaga cafiyay 5 bilyan oo dollar oo deynka oo nalagu lahaa. Waxaan ugu haraya wax yar oo ayna cafi karin oo aynan tartiib isaga gudno muddo dheer ay tahay. Waxaan noo furman hadda inaan marka aan deyn qaada karno. deynka seen u qaadanaynaa, xageen u qaadanaynaa, maxaan ku deynsanayna, xagee deynkaas aan qaadanayna, hadhow aan ka gudaynaa mase muddo kadib haddana sidaan oo kale deynkaana laga cafiyo aan haddana la soo istaagina. Hawl annaga iyo dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya u taalo waayo inay go'aan ka gaaraan, ra'yi cad ay dowladdu ka qabtaan. Ma doonayno dalka in dib loogu celiyo deyn kale oo haddana muddo kale uu la tacaalo. Maanta annaga waxaa noo furan inaan deyn iska qaadano laakiin kuwa naga dambeeya ayay mushkilo u tahay. U abuuri mayno mushkilo ilaahay idinkiis. deyn aan loo baahnayn iyo deyn aan gudistiisa aan meesha gudayso aan la ogeyn dalka looma qaadi doono haddii aan la yiraa. Waxaan rabaa hambalyada ummadda Soomaaliyeed ka sokow. Waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo una mahad celiyo dhammaan dadkii dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay ka shaqeynayay mashruucan deyn cafinta ee mustawa kasta uga soo qayb qaatay. Waxaan leeyahay dadaalkiinii maanta ayuu miro dhalay. anigana waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan processkan deyn cafinta aan soo bilownay, gadaashayna laga sii shaqeeyay, maantana aan haddana nasiib kale u yeeshay gabagabadiisii inaan soo istaago oo aan joogo. waa arrin aad iyo aad farxad u leh, aniga aad iyo aad ii farx gelinayso waxqabad dadka Soomaaliyeed ay gaarin ay tahay. laakiin hawl nin iyo 2 iyo 3 ay qaban karaan way ka weyneed hawshaan. waxaa soo qabtay dad aad iyo aad u badan. dadkaas aad iyo aad u badan mustawayaal kala duwan leh, siyaasiyiin leh, hogaamiyaal leh, farsamo yaqaano leh, aqoon-yahano leh, maxaan ku irahdaa nooc walba leh ayaa soo qabtay. waan ku hambalyeynayaa, waan ku bogaadinayaa, waana uga mahad celinayaa. dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay aad iyo aadna ha u foojignaadeenno inaan deyn kale magacooda inta lagu qaado aan dalka lagula cayaarin. annaguna kama shaqayn doono. sida keliya ee dadka Soomaaliyeed in deyn loo qaado ay uga badbaadi karaanna waa in ay ayaga dalkooda maal gashadaan, dhaqaalahooda dibadda jira soo celiyaan, dalka ku maalgeliyaan. kuwa dalka jooga cashuurta dowladda inay bixiyaan. dowladdu yaanan lagu khasbin inay deyn doonato. inta cashuurtii adiga lagu lahay waajib kugu aad bixin weydo, dowladdu inay adeega laga rabaa inay qabatay yaani deyn u doonanin. dabcan deynka ma ka maarmi doono, laakiin deynka aan qaadanayno waa deyn. waxaan u qaadanay deyn aan hubno in la gudaayo oo loo qaadayo meeshii gudi lahayd. warshadaa deyn loo qaaday, dekadaa lagu dhisaa deyn loo qaaday, airboraa lagu dhisaa deyn loo qaaday. lacagta ka imaanaysaa waa in deyn gudistii loo isticmaalaa, laakiin dowladduna ay meeshaas cashuur zaa'ida ay ka heshaa. dowladdu ma aha inay maalgelintii deynka loo soo qaaday lacagteeda inay qaadato. lacagteeda waa in deynka lagu gudaa, laakiin dowladda adeegga cashuurta iyo wax kale uga soo baxaya dakhliyada kale ayay leedahay. sidaas daraaddeed dalka Soomaaliya waxaa u furmay maanta in ay caalamka la macaamili karaan. hay-adaheena iyo bangiyadeena iyo hay-adaheena maaliyadda in ay la aqoonsaday, ay la biiri karaan, la falgeli karaan hay-adaha maaliyadda caalamka. laakiin waa fursad weyn, aad iyo aad u weyn, laakiin u baahan taxadarkeeda iyo feejignaanteeda u baahan. waana la imaan doonaa taxadarkaas. markaas dadka Soomaaliya waxaa leeyahay hambalyo, isku tashada, dhaqaalihiina iyo bajeebkiina ku tashada. adduunyadu waana soo kaalmaysay, meelayna soo gaarsiisay, waa inaan hore u soco karnaa. ogaada, waxaan rabaa hadalkayga aan kusoo gabagabeeyo walaalayaal. baahi badan iyo bugto badan iyo baryo badanba waa la isku nacaha la yiri. beeso jeebadaheena ku jirta
oo wax yaroo kamid aan bixinahay ay sharafteena soo celi karto ama soo celinayso inaan u sharaf beelno ma aha dadka Soomaaliyeed ha isku tashteen horay ha u socdeen waan guuleysanaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala toosan allah na waafajiyo culeysyada qaarkood masaarana allah naga qaado ummadeena qalbigeedana allah isu soo dumaadi aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh